kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meelbad ku suganteen kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadaan maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doonana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee qarax ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Muqdisho militariga Soomaaliya ayaa qaraxa la beegsaday warbixino ku saabsan dhimashada iyo dhaawaca weerarka ka dhashay oo aynu xogeediga hayno ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah maamulka Puntland oo shuruud ku xiray ka qaybgalka shirka gudiyada farsamada ee qaybta ka ah heshiiska Dhuusamareeb haddaba miyuu shirka fashil ku dhow yahay waxaan kaloo idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee kulanka baarlamaanka Soomaaliya qodobada ay xildhibaanadu ka doodayaan miyuu ku jiraa in muddo kordhi loo sameeyo hay'adaha dawladda Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland oo ugu dambeeyay la xirtay dawladda dhexe ee Soomaaliya arrintan waxay dhibaato weyn ku tahay Kenya kacdoon ka dhanaa shirkadda DP World ayaa ka bilaabanaya magaalada Boosaaso cidda ka dambaysa ayaana la ogaanaya qodobada kale aan idin hayna waxaa kamid ah diyaaradda Kenya laga leeyahay ee Kenya Airways oo joojisay duulimaadadii ay ku tagi jirtay Soomaaliya xilli madaxweyne Farmaajo uu dhinaca kala diiday in qaadka la keeno gudaha waddanka Soomaaliya dawladda Itoobiya oo fariin bahdilaad ah u dirtay Somaliland qodobadaas ayaynu ku faaqidi doonaa barnaamijkeena maanta waana 8 bisha 8 ee Agoosto sanadka 2020 barnaamijka wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee waddanka daawada ka qayb qaado dibiriska dalka annagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celi kara واسكم سيتي تاينا نلفاتان فضلنا لفافية ورركة هذيك وكشر جرينا براها بالشدة أنا كوب لابن ورر اسمه دامنا أيام ما تكاد عن مقالة مقدشة عاصمة الصومالية قال لقصه بحي وحبها قرحة إسلام رهان ترى وذي قف نفتي هراء أيا وحلا لا يكتي حرق إذا أو يدقيهن عدمة حوق دلكا قارهان قوت ضلبي تونادي أبرد أو كنت على دبر كدبي حرونت حسب جي استاديوم مقدشة مقالة عاصمة قرحة وحامد اسمه دامنا أيا وحا لقول فتي iridda hore ee xirada oo ay ku sugnaayeen cidmo ka tirsan kuwa xooga dalka qasaare xoogan ayaa ka dhashay qaraxa oo isugu jira dhamashay dhaawac waxaana qaraxan inta badan laga maqlay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya xirada weerarka qaraxa lagu qaaday ayaa waxaa deganaa cidmo ka tirsan militariga dawladda gaar ahaan qaybta 27aad ee Abriil oo dhismahan ay degan yihiin loogu magac daray waxaana u xiran wadada u dhaxaysa isgoysyada Baar Ayaan ilaa General Daawud oo dhanka bidix ka marta hotelkii isbartibada gaadiidka gurmadka degdega ayaa gaaray goobta uu falka ka dhacay ciidamo ka tirsan booliiska oo ku sugan meel aan ka dheerayn halka uu qaraxa ka dhacay ayaa sidoo kale xiray wadooyinka afayeen u hadlay booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in ku dhawaad 8 qof ay dhinteen ku dhawaad 12 kalena oo u badnaa ciidamada militariga dawladda Soomaaliya ay dhaawacyo soo gaareen dhismaha garoonka ciyaaraha Muqdisho oo balac ahaan ku fadhiya inta u dhaxaysa wadooyinka warshadaha ilaa iyo wadada Sodonka waxay u kala xiran tahay qaybta ciyaaraha dhismaha xarunta xisbiga iyo xirada cuuriyaaminta oo ay degan yihiin ciidamada militariga Soomaaliya dhismaha xirada cuuriyaaminta oo laba qayb ah waxaa dhinac degan askar ka tirsan militariga gaar ahaan guutada 12aad halka qaybta xigta dhinaca wadada Sodonka ay degan yihiin dad rayida qaraxan waxa uu ku saaday xilli amaanka magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay uu soo hagaagayay inkastoo ay dhaceen qaraxyo iyo sidoo kale falal kale amaanka lid ku ah wararka ku soo kordhay iyo warbixinada la xiriira qaraxan oo hadda la soo sheegay dhimashada in 8 qof ay gaarsiisan tahay lagana yaabo inay tirada inta ka badan tahay wararkeena dambe iyo barnaamijyadeena ayaynu ku soo qaadan doonaa insha Allah imikana warar dheeraad ayaa ka soo baxaya doodii baarlamaanka Soomaaliya ayada oo dad badan ay saadaalinayeen ama tuhun ay ka qabeen in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ku dhawaaqaan go'aan lama filaan oo la mid ah kii ay xilka uga tooreen ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Khayre warar ay bixiyaan xildhibaano ka dhow gudoonka baarlamaanka Soomaaliya oo aynu saaka tibinay ayaa sheegaya in ku dhawaad 138 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ay saxeen mooshin in muddo kordhi loo sameeyo hay'adaha dawladda gaar ahaan baarlamaanka iyo sidoo kale madaxtooyada si ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabayo uu awood ugu yeesho in 2 sano oo dheeraada uu ku soo diyaariyo in dalku ku galo doorasho qof iyo cod qorshahan oo la faahsanaa in ay sidoo kale taageerto tahay madaxtooyada Soomaaliya ayaana looga doodeen kulankii baarlamaanka ee maanta gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in kulanka looga dooday sharciga dambiyada galmada la xiriira taas oo baarlamaanka Soomaaliya hor yaallay laakiin ololaha ay wadaan inta badan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ku raayiga ah madaxtooyada isla barhaantana doonaya in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod taasna ay ku xiran tahay muddo kordhi loo sameeyo hay'adaha dawladda ayaa wada ololahooda waxaana la filayaa in kulamada soo socda ay yeeshaan ay doodooda sii wadaan wararka ka soo kordhay arrimaha dib ayaan digala socodsiin doonaa insha Allah imikana isla wararka aynu ku helayno magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in inta badan ay magaalada Muqdisho ku sugan yihiin gudiyada farsamada ee doorashada Soomaaliya kuwaas oo lagu aasaasay shirkii Dhuusamareeb xubnaha Muqdisho ku sugan ayaa ka wada arrinsan doona qaabka u dhici doonto doorashada ku soo wajahan dalka dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe ayaana hore u magacaabay xubnaha maamulada Hirshabelle
Jubbaland, Koonfur Galbeed, Puntland iyo Galmudug ayaa la siiyay min 2 xubnood oo maamulka kuwaas oo intooda badan Muqdisho haatan ku wada sugan isla marhaantan ay shirar ugu socdaan. hase ahaatee wararka soo baxaya ayaa sheegaya in Puntland oo horey uga biyo diiday qaabkii loo maray ridistii ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Khayre aysan ilaa iyo hadda xubnaheeda u dirin magaalada caasimadda oo aysan ka qayb galaynin shirka socda. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa bishii hore ee Julaay dhamaadkeedii magacaabay 2 xubnood oo Puntland ku matali doona guddiga farsamada ee ka wada shiri doona nooca doorasho ee dalka, waxaana xubnaha oo kala ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiga Maxamed Cabdiraxmaan Dhaban iyo sidoo kale agaasime ku-xigeenka guud ee madaxtooyada maamulka Puntland hadda ay ku sugan yihiin deegaanada Puntland iyagoo aan tagin magaalada Muqdisho. xubnaha uu madaxweynaha Puntland magacaabay ayaanan u safrin Muqdisho, waxaa sidoo kale aan caddayn mowqifka Puntland ee doorashada Soomaaliya sabab la xiriira kulamada wadaxaajoodka ah ee Muqdisho aysan weli ka qayb gelin. inkastoo madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo weli safar ku jiro, haddana ma jirto sabab cad oo ay Puntland uga biyo diidan tahay inay ka qayb gasho kulamada guddiyada farsamada ay uga tashanayaan nooca doorasho ee dalka ka dhici karta. madaxtooyada Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada ayaa isku haya nooca doorasho ee dalka ka dhici karta. maamul goboleedyada ayaa soo jeediyay in dalka ay ka dhacdo doorasho waqtigeeda lagu qabto oo ah doorasho dadban, laakiin madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkaysanaya in dalka uu u baahan yahay doorasho qof iyo cod, taasoo shacabku u saamaxaysa in ay doorasho u dareeraan oo ay soo doortaan mas'uulkii ay dooro lahaayeen. warar la xiriira kacdoon ka dhana shirkadda DP World oo ka bilowday magaalada Boosaaso ayaa inoo soo socda, laakiin Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa ugu dambeyntii u muuqda inuu la xirtay dowladda federaalka Soomaaliya. arrintaasna waxa ay dhibaato ku tahay dowladda Kenya oo muddo badan garab taagneyd hogaamiyahan kaas oo mar dagaal xoogan kula jiray dowladda Soomaaliya. xog cusub oo la helay ayaa muujinaysa in ay isku soo dhawaashiyo xoogan ay muujinayaan madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, isla markaana inta badan isfahan hoose ay ka gaareen doodda ee ka taagneed arrimaha Jubbaland. mas-uuliyiinta oo 2 jeer ku kulmay Dhuusamareeb intii uu socday shirka madaxda qaranka iyo maamulada ayaa waxaa kadib jiray xiriiro dhexmaray oo qadka telefoonka ku dhexmaray kuwaas oo ku heshiiyay in la ilaaliyo dastuurka maamulka Jubbaland iyo kan qaranka lana xoojiyo heshiisyadii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. madaxweyne Farmaajo ayaa Axmed Madoobe u sheegay inuu dhowri doono dastuurka Jubbaland, taas oo ka dhigan in dowladdiisa aqoonsato doorashadii Kismaayo. mas-uul ka tirsan madaxtooyada oo aan magaciisa sheegin ayaa sidaa tilmaamay. sidoo kale Farmaajo iyo Axmed Madoobe ayaa ku heshiiyay in shir dib u heshiisiina loo qabto beelaha Jubbaland, waxaana shirka uu ka dhici doonaa magaalada Kismaayo. sidoo kale magaalada Garbahare ayaa lagu xalin doonaa tabashada gobolka Gado. xogta aynu helnay ayaa sheegaya in qodobada ilaa iyo hadda la doonayo la dhaqangeliyo si heshiiska loo sii abaqaado waxaa ka mid ah in dowladda Soomaaliya ay dib u soo ceshato ciidamada Gado ay geysay, in dowladda Soomaaliya ay dib xorriyadii u siiso gudoomiyihii gobolka Gado, iyo qodobka saddexaad oo ah in dib loo fasaxo duulimaadyadii tooska ah ee magaalada Kismaayo, qodobkaas oo si rasmi ah horey u dhaqan galay. ila waraadyo laga helay madaxtooyada ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo hadda ay ku fariyihiin cadaadisyo dhinaca siyaasadda uu garowsaday in uu sii socdo dadaalada uu ku soo jiidanayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe si ay isku garab u noqdaan marka lagu laabto shirka magaalada Dhuusamareeb, isla mar ahaantaana la hirgeliyo qorshaha dowladda ee ah doorasho qof iyo cod dalka ay ka dhacdo. laakiin dhammaan arrimahan waxay dhibaato xoogan ku tahay dowladda waddanka Kenya oo muddo dheer garab taagneyd hogaamiyaha maamulka Jubbaland kaas oo mar dagaal kula jiray dowladda dhexe ee Soomaaliya. Axmed Madoobe ayaa weli hadda ku sugan magaalada Nairobi ee xarunta waddankaasi Kenya. wararka ayaana tilmaamaya in halka uu joogo kulamo uu la leeyahay saraakiil ka socota dhinaca madaxtooyada Soomaaliya si loo hirgeliyo qodobada heshiiskii magaalada Dhuusamareeb. wararka ku soo kordhay dib ayaan idinla socodsiin doonaa insha Allah. shirkadda Kenya Airways ayaa sheegtay inay hakinayso duulimaadyadii diyaaradeeda ay ku tagi jirtay magaalada Muqdisho. shirkaddan Kenya Airways ayaa talabadan u cugsatay cudurka COVID-19 iyadoo ay jirto xiisadda Soomaaliya iyo Kenya ay meel xoogan marayso. warqad lagu daabacay TV-ga Citizen ee waddankaasi Kenya ayaa lagu sheegay in Kenya Airways ay hakinayso duulimaadyadii ay ku tagi jirtay magaalooyinka Muqdisho, Khartoum, Djibouti iyo magaalooyin kale oo Afrika ku yaala. dalka Tanzania oo hore sidaan kale ugu soo rogtay ayaa arrintan ka dhiidhiyay, wuxuuna gabi ahaanba shatiyadii ka xayoobiyay shirkadda Kenya Airways oo haatan tagi doonin dalka ilaa arrinta laga xaliyo. dhawaantan ayay ahayd markii golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya ay fasaxeen duulimaadyada Kenya gaar ahaan kuwa qaadka miiraaga, taas oo dad badan oo Soomaaliyeed aysan soo dhaweynin. laakiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa la soo sheegayaa inuu tallaabada ka hor yimid
isla mar ahaantana uu laalay go-aankii ay soo saareen golaha wasiirada. warar kale oo ay saxaafadda Kenya qorayso ayaa sheegaya in ganacsatada qaadka waddankaasi Kenya ay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya u direen 2 xubnood oo iyaga ka tirsan si ay ugu ololeeyaan in xayiraadda laga qaado maandooriyaha. warar kale ayaa tilmaamaya in 3 xubnood oo ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya loo xilsaaray inay ka soo tala bixiyaan qaaditaanka xayiraadda bishii Maaj lagu soo rogay qaadka. talabada ayaa ku soo aadaysa xilli dowladda federaalka Soomaaliya ee ganacsatada maxalliga ee qaadka ay kala kulmayso cadaadis xoog. kooxaha u ololeeya mamnuucida qaadka ayaa doonaya in dowladda ay sii joogtayso in dalkan la soo gelin qaadkan oo ah mid maandooriya. waa xagaag daawadayaal qaybihii dambe ayayna soo gaarnay ee toddobaadkan ayay mar kale soo shaaxbaxday halista ku wajahan xaaladda ay ku sugan tahay dekedda magaalada Boosaaso markii uu halis u galay in uu dego markab waday shixnad ganacsi oo ay lahaayeen ganacsatada Puntland iyadoo ay meelaha muhiimka ah ee dekedda buux dhaafiyeen ciidamo fara badan oo aysan waxba ka qaban shirkadda gacanta ku haysa ee B&O qaybtana ka ah shirkadda waddanka Imaaraadka Carabta laga leeyahay ee DP World. qaar ka mid ah dadka magaalada Boosaaso ayaa muujiyay walaac ay ka qabaan xaaladda dekedda Boosaaso waxayna dalbadeen in la helo isla xisaabta dhameystiran oo ku wajahan sidii wax looga qaban lahaa arrimaha hadda ka taagan dekedda laakiin caqabadaha ay hadda sii kordhayaan sida muuqata. gudoomiyaha gobolka Bari iyo wasiir ku-xigeenka dekedda ee Puntland ayaa beeniyay in halis ay ka jirto xaaladda dekedda magaalada Boosaaso kadib markii ay amar ka heleen madaxweyne Dani oo ku amray in arrimahan ay ka hadlaan markii arrintan ay cabasho ka soo gudbiyeen ganacsatada Puntland. hadda siyaasi Xuseen Xasan Fiqi oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Puntland u tartamay 2019 ayaa sheegay in aan laga aamusi karin xaaladda dekedda Boosaaso. waxa uu sheegay in xalka kaliya ee furan uu yahay kacdoon ay sameeyaan shacabka isla mar ahaantana ay qasab tahay in gacanta loola tago shirkadda DP World taas oo aanan waxba ka qaban dekedda kadib muddo bilooyin badan oo ay halkaa haysatay. mas-uulkan waxa uu cadeeyay in aan xal dambe laga sugayn madaxweynaha Puntland ee ku wajahan dekedda magaalada Boosaaso. baarlamaanka Puntland oo dhawaan dood ka yeeshay arrinta dekedda Boosaaso ayaa u yeeray wasiirka gaadiidka waxaana uu sheegay in bisha Agoosto gudaheeda madaxweyne Dani u safri doono magaalada Dubai halkaas oo isku arki doonaan madaxda DP World oo ay ka wada hadli doonaan arrimaha ku wajahan sababta uu socon lahayahay dhismaha dekedda. dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa horey ugu gacan saartay dekeddan waana tii ugu horeysay ee khilaafka ka dhex abuurtay Muqdisho iyo sidoo kale Abu Dhabi. laakiin shirkaddan ayaa si madax bannaan waxa ay xiriir u leedahay maamul goboleedyada. haddii uu dhaco kacdoon shacab oo ka dhanay shirkadda DP World talabadaas waxaa soo dhaweyn doonta dowladda federaalka Soomaaliya oo shirkaddan u aragta mid kala qaybinaysa ummadda Soomaaliyeed. ugu dambeyntiina dowladda Itoobiya ayaa qad cas u xariiqday Somaliland kana digtay in ay ka gudubto iyadoo sheegtay in saldhigga Masar ay ka doonayso Somaliland inuu yahay mid halis ah oo aan la aqbali karin. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Itoobiya Dina Mufti ayaa yiri Masar waa dal madax bannaan oo xaq u leh inuu xiriir la yeesho dal kasta oo gobolka hase yeeshee taasi ma aha inay ku timaado iyada oo la waxyeeleynayo xasiloonida Itoobiya. waxaa dhawaan jiray warar sheegaya in Masar ay saldhig military ka samaysanayso Somaliland xilli iyada iyo Itoobiya ay ka dhaxaloosan tahay xiisada ka dhalatay biyo xireenka ay Addis Ababa ka sameynayso webiga Niil. dabayaaqadii July wafdi ka socday Qaahira ayaa la kulmay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana wararka ay sheegayaan inay ka wada hadleen qorshaha saldhig. arrinta saldhigga annaga waa inoo qadcas ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo intaa ku daray in xukuumadda Addis Ababa ee xiriir saaxiibtinimo la leedahay Somaliland inkastoo aysan dalahan u aqoonsane. qaar ka mid ah dadka taxliiliya siyaasadda ayaa tallaabooyinka Masar u arka kuwa looga argudanayo dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay inay taageertay xuquuqda Itoobiya u leedahay biyo xireenka kaas oo Qaahira si weyn ugu hortimid. Masar iyo Itoobiya ayaa ah laba dal oo si weyn hadda ugu loolamaya Somaliland sabab la xiriira ahmiyadda iyo halka ay qaraarad ahaan ku taalo taas oo ay taxliiliyaasha qaar ay rumaysan yihiin inay soo dedeji karto aqoonsi ay Hargeysa hesho. qodobkaas ayaa ugu dambeeya wararkeeni. hadday warar soo kordhaan insha Allah gaar ahaan qaraxii xooganaa ismidaaminta ee ka dhacay magaalada Muqdisho barnaamijyadeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa insha Allah. barnaamijkeena intaas ayaan ku soo gabagabay doonaa.